musharax xildhibaan Dr. Yunis Xasan Xaaji ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana Dr. Yunis uu musharax u yahay xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya musharax xildhibaan Dr. Yunis Xasan Xaaji ayaa horey u soo noqday qonsulkii Soomaaliya ee qaramada midoobay qaar ka mid ah waxgaradka ayaa soo dhaweynta musharax xildhibaan Dr. Yunis ka hadlay maanta waxaan soo dhaweynaynaa musharaxeena Yunis Xasan Xaaji oo noogu yimid si cisi iyo sharaf leh nagu ixtiraamay inuu nagu soo booqdo gurigeenni isla markaasna gurigiisi isaga oo raba inuu ka turjumo danta dalka iyo dadka khaasatan gobolka annaga aan ku dhaqannahay ee Hirshabelle caasimadiisa degmada Jowhar oo aan u garab taagannahay guul waxaan ku qanacsannahay waxqabadka mustaqbalka dambe 4 sano soo socota waxaan idin sheegayaa maanta oo na soo gaaray Dr. Musharax Yunis Xasan Xaaji Maxamed sheegayaa doctorka inaan gacmo furan ku soo dhaweyno iyo qalbi furan ummadana waxaan u sheegaynaa inuu musharax rasmi ah u yahay ilaahayna aan uga baryayno inuu ku guuleysto dadka ka soo qayb galay xafladan quruxda badan oo soo dhaweynta musharax Dr. Yunis Xasan Xaaji aad iyo aad ayaad u mahadsantiin ka soo qaybgalkii ka soo qayb gasheen xafladan iyo sidii aad soo dhaweyseen waana ku mahadsantiin aniga intaas aan ku dari lahaa ugu dambeyn ayaa waxaa soo dhaweynta ka mahad celiyay musharax xildhibaan Dr. Yunis Xasan Xaaji marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo soo dhaweynta quruxda badan amaanta igu soo dhaweyseen aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaa sida sharaf kale aad ii soo dhaweyseen waxa ma taqaanaa in lagu farxo in muddo 50 sano kadib ay dalka ka dhacdaa doorasho shacabkana ay doortaan qofka ay rabaan waa horumar aan gaarnay 4 sano oo la soo dhaafay waxay daliil u tahay in hogaankii dalka ay wax badan qabteen marka aad iyo aad idinku mahad celinaa aad iyo aad aan u mahadsantahay Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV Jowhar.